waxaynu eegi doonaa bal hadda dabeecadaha iyo astaamaha uu leeyahay qalbiga wanaagsan iyo qalbiga xun si kale inuu dhigi doonaa Allah subhanahu wa ta'ala uu inoo ogolaado marka qaybta attitude marka aynu leenahay waxa ku qoran dictionary meaning-ga it is the most complicated and the most powerful part of our body waa qaybta jirkeena ugu mugga weyn waa qaybta jirkeena ugu awooda badan waa qaybta jirkeena ugu saameynta badan waa qaybta ummadda Soomaaliyeed inay sabool noqoto ka dhigtay weeye qalbiga inagu jiray qalbigu diiniyan hadiiskii waxa uu ahaa waslad waxa jirta jirka kamid ah haday wasladaasi xumaato dhamaan jirka intiisa kale waa xumaada hadiiskii kale waxa uu ahaa marka laa ilaaha illa allah safad la saaro cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysana safad la saaro laa ilaaha illa allah waa ka culus soma qalbigu shayga miisaan kale waa ka qaaday marka hadaba waxa isweydiin la mugiisu intee buu leeyahay qalbiga inagu jira mugiisu hal shakhsi oo ibn aadana ayaa cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxayso oo miisaan la saaray hal shakhsi oo ibn aadamana ayaa ka miisaan weyn oo ka balaaran that is the attitude qalbiga horta shaygu lagu leeyahay gabay waxa jiray Soomaalidu waxay ku maahmahdaan inaan nasabkii horumarin casabadii ma horumariso jannana waxa lagu galaa qalbigaaga waxa ku jira cadaabna waxa lagu mutaystaa qalbigaaga waxa ku jira abwaan shubi alla yacizak Allah ka jazaa'isiyo wixii hanka la isku dhaafay ee dadku ba haybta guudsiman hoodiya nasiib waxa ku laran dhidid la horsha saboolnimada waxa lagaga baxaa dhididkaaga iyo seedaada oo leeliyatay baad sada ku gaadha sharaf iyo mudnaan waxaad ku leedahay waxa aad tabcato Soomaali muus qura ma rabta baa leeyahay in loo diiray rabtaa waliba diirka laga soo tuuro hawl diidid dibadiidid nacaybka marka hanku lama helo wadaado waxaan cid ku hawsho waxaan aan qabto xirfadan aan leeyahay oo baahidana ummadda haysato oon kaga dul qaadi male meel yaroon wax yar ka qaata maadii yar sameeysid buu koran inuu wax qabta ma rabo inuu wax qaatana uu rabo qofka Soomaaliga marka we are poor because we lack attitude qalbi aan fiicnayn bay nagu jira waxa uu yiri doodaan alla ya raxmi qaryaanki weyna wixii koob la taabto amba la istuso ayaa tabuda weysa ee sidee loo tanaawili karaa toos aqliga haysa tolkay halku ka buko uma xoqi karo wuu ogyahay we are poor because we lack attitude saboolnimadeenu meel kale kama iman saboolnimada ina haysata iyo fakhriga ina haysta meel kale kabuu iman waa qalbigeena ummadda Soomaaliyeed ee ambadiid ambayel we are poor because we lack attitude wixii hadraawi alayra damirku haduu qalalo haduu dufan raadis yahay daliilka hortiisa yal waxa kaga beeganda adiga xaq daahba idin dhaxeeya haduu qalbi saliimi aanu kugu jirin hadii una qalbi wanaagsani aanu kugu jirin you are always poor markasta waxa tahay sabool ummadda Soomaaliyeed waxay isku hawshaa waxaana iyadu waxba rool ku lahayn kana reechiliba kana ree quraca kana ree qansaxa kana kan ka fiican kana kan ka originalsan ma cid ba made in China ya cid walba ilaahay baa sameeyay anigu ree galoolina noqdo adna ad ree qansax noqoto midkeena ilaahay arji uma geysano anu halkan aan inaan ka dhashaa tahay cid ilaahay arji u geysatay ma jirto it is Allah choice haybta muxuu uga dhashay uu qaadir uga yeelay inaad qof ku disho maxaa sababay qalbiga saboolka inagu jira baa sababay ummadda Soomaaliyeed
ilaahay muxuu qabiilka uga dhigay waa haybtanaad u dhiman adigoon wax alli yaalo waxaad cid u geysatay jirin yaad u dhiman why abiyaan masuusu shaacir baa layidhi ummadda soomaaliyeed maxay horumar la gaadhi laadahayo wuxuu yidhi wax kaley ku sidataa halkay waana gelilay gudaheeda wax kalaa ku jira way wada fadhidaa ummad walaalaan axmaartaa ku maahmaahda waxay idhaahdaan markuu ilaahay hantida qaybinayay ayaa dadku fayl bay soo galeen carabtii maxaan ku siinaa diinna lagu qadariyay iyo shidaalaa naga dhammaan hela baa layidhi yuhuud baa soo joogsatay maxaan idin siinaa cilmi aanu dadka dheernahay hela baa layidhi maraykan baa layidhi maxaan ku siinaa nuclear aanu dadka ugu hanjabniyo awood hela baa layidhi afrikaan baa soo joogsado maxaan ku siinaa baa layidhi maxaa dadka kala siisay buu yidhi orodoo dayday baa layidhi mid tahriiba mid tahriiba dayrkii mexico markay sii marayeen baa imika u dambaysay that is the reason nacam dadka kale waxa